بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ولا ليال دمانتين آديات بعد ما سنتين كلن كان يرى كوبا dad badan oo ahbaabta ah iyo talabada cilmiga iyo ay soo codsadeen oo maaragtay ku saabsanaa bal sheekheeni oo in muddo ah inooga maqnaa isbitaal iyo maaragtay xanuun iyo dawo in ay bal arkaan oo ay bal sheekhi iyo xaaladiisii ay maaragtay ay si dhow oo aan qurbina ay ula socdaan marka kulankan iskeera degdeg ah baa sidaas ku qabsoomay marka sheekhiina waa inuu imaaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo xifdiyo marka ka kulanka waa iska koobi doona wax yar oo kooban buu noqon doona marka waxaan ku bilaabaynaa quraan oo inoo akhrinay sheekh Nucmaan kadibna waa marka waan soo gabagabeynaa insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون waxaan hadda kusoo hadalka siinayaa fadl sheekh Ali Usama bal si uu soo dhaweeyo sheekha iyo maaragtay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم خيارة الأمان الله يدوم البركة كل فردقان سيدو أخونا شعب حليم بقوت المامي فردق كوبان أو بوق الشعويان الشيخ حفظه الله أن قصوا بوقنيني حفيز كنا منظمة إحسان مركا وأنا حلي الدنبي waxaan rabnaa inuu bal si yar oo kooban sheekha arrimihiisa caafimaadka insha Allah inuu wax yar oo warbixin yar oo kooban insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala cumrigiisa dheereeyo inuu wax yar walaalaha soo boqday akhyaarta iyo culimada iyo dhammaan inuu warbixin yar oo kooban oo siiyo inta wayaan waa ziyaaratu maridki nusuusta aan ku arki jirnay in badan inuu sheekha caawa ugu nimi marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala شيخنا عافمات كيس هوزياديو كشيخ عن كوريتشي بلسيو أربحين كوبا سفر كيسي هندية رميس عافمات كي حالة دا قدام بيس عاوة ماشي أي مرسو وشيخ أربحين كوبا نقصي جزاكم الله خير بسم الله الحمد لله الثناء بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد جزاكم الله خير وبارك فيكم أحبابتا يا أخ ولا لا بوغشدة وأكم أحسنتين إلى هنا جزاك حسنات كيدين سارو زيارة أو dadka walaalihi isa siyaartaan oo la isbooqdo kulay waa ogsoonahay meeshay shareecada kaga taala iyo macnaha weynay ku fadhido
ama ruuxa ziyaarada sameynaya iyo ajirka iyo qiimaha ay ugu fadhido ama kala siyaaranaya iyo macnaha ay u sameynayso intaba marka aad baan idinka mahad celinayaa jazakumullahu khayran midda labaad kolay safarta aan hindiya ku aaday oo hadda 2 bilood bay dhamaatay taqriiban maanta iyo maalinkan baxay 2 bilood way taqriiban waxaan hadda meesha u aaday iyo duruufaha caafimaad iyo maraaxiisheedii iyo kolay macluumaadkeeda wad hayseen oo waxaan u maleynayaa wad la socoteen Soomaalidu waxay yidhahdaan war lahayo xiise ma leydha marka social mediaha iyo walaalaha ila soo xiriirahayay iyo macluumaadka kolay mutawafir bay ahaayeen marka ku sii dheeraan maayo alxamdulillah kolay duruuf caafimaad baan u tagay wixii aan u tagayna ilaahay tabaaraka wa tacaala waa iisoo fududeeyey taqriiban 2 qalin ayaan maray qalin wuxuu ahaa dhabarka oo muxuu ahaay operationkii koowaad ama surgerygii koowaad laga sameeyey waxaan isbitaal ku jiray 4 beri wixii ka dambeeyey banaankaygaan orday qalinka labaadna wuxuu ahaa kelida ayuu ahaa asagana 4 beri baan isbitaal ku jiray wixii ka dambeeyana waa adeeganayay anaa iska shaqaysanayay labada qalin ayaan maray labadabana ilaahay fadligii si wanaagsan baa loogu guuleystay waxada culaysa oo runtii caafimaad weynna ma jiro boogihii inta badan iska bogsadeen qaliimadii mariyay tan dhabarku jeexid bay ahayd laakiin tan kalidu waxay ahayd robot baa la yidhaahdo oo muxuu ahaay waxaanay dhahaan waa dulduleelin meelaha la duleelinahayayo saasaa jeexid badani ma jirto marka nabaradiina inta badan iska bogsadeen caafimaadkayguna waa fiican yahay kursi kuma tukado taagni iyo rukuuc caadi iyo sujuud caadi socodkaygana waa aniga idin imid oo dee anuu lugeynayaan hadda muxuu ahay jaranjarada anaa fuulahay waa ka degi karaa xoogaa kolay tabardarri waa iska jiri kartaa ruux 2 qaliimiya galay muddo waa iska yara baahan yahay laakiin alxamdulillah 100% caafimaadkaygu waa dhammaystiran ilaahay baa fadliga iskale waxaan rajeynayaa kolay muslimiin badan baa noo soo duceeyey oo ducadoodii in ilaahay noo aqbalay baan rajeynayaa insha allah tacaala waad idin ka mid tihiin waxaana dhihi karaa kolay ruuxa haddii loo digo waa nasiib baraarujin ilaahay waa qiraa'ada saxda ah runtii hadda la akhrin karayo cuduradaas ruuxa muslimka ku dhacay iyo taataabashadaas xoogaa la taataabanayo waxa weeye macnaheedu waa lagu hayaayo waa lagu soo dhow yahay niyow fadhiga ka kaco sidaa tahay ka bedel oo diyaar garow saa unbaa taqriiban marka waa nasiib haddii lagu digay qaar badan baaba iyagoo digniin horeba lasoo siininba luqunta la jebinahay sooma marka iyada lafteeda waxaan leeyahay waa fadli ilaahi alxamdulilah alladii binicmati tatimu الصالحات والحمد لله على كل حال ilaahi baa fadliga iskale kolay insha allahu tacaala waa laga yaabaa inaan marar u noqdo check up iyo saas kale u laabto laakiin hadda wax weynoo dhibo jira ma leh muxuu ahay kolay qaar badan markaan hadda imid oo Nairobi shalan ka soo degay social media ay ka arkeen anoo meesha ka soo degay inaanan dhibanin way xaqiisadeen
qoliyihii lahaa wadaadkii allah u naxariisto marka walaa qabrigu ka soo baxay hadda Nairobi buu dhex jooga marka calaa kulli xaal waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayr aad u mahadsantihiin mar kale dhammaan dadka muslimiinta ee walaalaha ee runtii aad xanuunkayga iyo uga xanuunsaday soo duceeyay iyagana aad baan ugu mahad celinayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inta jirana ha caafiyo inta fayow iyo caafimaad qabsan ilaahay caafimaadkooda ha u siyaadiyo iyagana saasaan ugu ducaynaynaa insha allahu tacaala baarak allah fiikum jazaakum allah khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu